السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada akhyaarta ku xidhan channelka Soomaaliya Twig Classroom. Waxaan noo socday taxaniin la magacaabay taxanaha technology-da. Waxaan soo gaarnay taxanihii tutorial-ka ama aan dhahnay 45aad. Maanta waxaan ka warram doonaa wax loo yaqaan UPS. Horta ardayda ogsoono casharkan iyo kii ka horeeyay isku mar xinaanaya. Sababtan soo sameeyay wax weeyaan wax isqoseeyaan ay ahaynba. ila socota maalin walba meel baan u guuri doonaa marna networking baan dhex jibaaxi doonaa marna wax ku soo noqon doonaa hardware iska qalabada jira mar technology marka waran doonaa mar protocol aan ka waran doonaa marba waasi marka waa iska muraajacoon maanta waxaan ka rabaa waxa loo yaqaano UPS device qalab loo yaqaano UPS aan maanta ka waran doonaa balan ku soo dhawaano UPS ku waa maxay UPS ku waa qalab qaab dhismeedkan leh isagoo qaab dhismeedyo kala duwan lehna waa uu jira qalabkan UPS maxaa loo soo gaabiyay waxa loo soo gaabiyay uninterruptible power supply ama UPS luqadda carabeed waxa lagu yaqaan Soomaaliya aynaan gaarin waxa loo yaqaan master luqadda carabeed master daaqa غير منقطع master daaqati غير منقطع baa loo yaqaan غير منقطع oo quraanka kuma jirta Soomaha meel ay غيري ay ku qoran tahay soo ku jirta isku soo غير المقدوم يعني ku jirin ba marka waa masar daaq غير منقطع baa loo yaqaan hadda waxan muxuu yahay waan isla garanay luqadda carabiga luqadda Soomaaliba luqadda Ingiriis ku sheegan muxuu yahay qalabkan waa qalab qaab dhismaysan qalabkan waxa weeyaan waa qalab la taaban karayo oo hardware kaasoo uu ogolaanayo computerkeenu in uu sii shaqeeyo isagoo bilaa dab ah oo macnaheedu tahay waa ka dabkaydiyo oo waxa weeyaan hadii tusaale kala 10 computer meeshii inoo yaalaan 10ka computer yihiin all one brit oo marka uu dabku go'o tag laha oo ka dami laha ayaa qalabkaagan wuxuu sameeynaya in uu dabka ku sii hayo intuu dabkii kale uu soo noqonayo caadi aad ku xidhnay directly current-ga aad ku xidhnayd oo DC-ga inuu magaranaysa intuu ku soo noqon laha ayuu ku sii haynaya oo waa ku sii sima af Soomaali dab ku sii sima dabka ku sii sumaya intuu ku sii simi karaya way kala duwan kolba waxa ku xilan tahay qaab dhismeedkiisa iyo mugga uu dabka kaydiyo mid wuxuu kugu simi karaya 15 minute mid dabka wuxuu kugu simi karaya 30 minute mid wuxuu kugu simi karaya 1 saac mid wuxuu kugu simi karaya 20 saac mid wuxuu kugu simi karaya 2 days mid bil mid kolba waxa ku xilan tahay inta uu leeyahay qarahan iyo intii magaranaysa uu storage uu kaydin karayo marka hadii lagu weydiyo wax la waa dab waa qalab la taaban karayo kaasoo qalabadaada halkii markay dabka ay waayaan uu ka go'i lahaa ayaa badana uu ku saaya hakeen laga adeegsada badana waxa laga adeegsadaa meelaha loo yaqaan data center iskan video gorka ka waran data centerada laga adeegsadaa oo macnaheedu maadaama data center iska tay barti xogta lagu hayay ay in xogteeda la helaan inuu data center kaas uu shaqeynay laga maarmaan tahay haduu dabku tago ama dawladdu ay goosataba ama waxba dhacan ama uu birti uu xariga ka soo jidin oo go iyo ka dabeel laha isla markaaba data center-kiiba hawshii la wareegay ilaa intuu kii kala soo noqo markuu kii kala automatic kala soo noqo isaga ka baxay meelaha laga adeegsado kala ugu caansan waxa kamid meelaha dhaqaatiirta maadaama ay jiraan dad neefta magaranaysa oxygen qaata oo amarkii dabka waay keenay dadka qalinimada lagu jiro waana hal mar halkii second buu xisaabsan yahay qalabkan UPS ka uu si bixinay kaalinta dollar ku tago meelaha kale laga helo waxa telecommunication iyo qalab meelaha isgaarsiinta waa laga helaa meelaha electrical-kana waa laga helaa meelaha xafiisyada dawladda waa laga helaa hadii meesha saamiintay meelaha laabka waa laga helaa oo laabo ka badana maadaama qalabada ay yaalaan oo direct current ay adeegsanayaan kombiyuutaradu badana UPS ka waa laga helaa video soo santa ku kulmi doono oo ku baran waxa loo yaqaan UPS oo af Soomaaliya aan ku sheegnay dab ku siisimaha ayaan ku soo gabagabeynaa video soo santa ku kulmi doono waxaan ku kala degi doonaa salaamta islaamka oo inoo leh assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.